saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa isbedel xoogan in lagu sameeyo. Haddaba kuwa qaar ay saameyn ku yeelan doontaa waxaana isbedelkaasi ka soo muuqan doona xubno la sheegay inay ku dhow yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba xogtaas oo muhiim ah ayaa halkan idinkula wadaagaya soo dhawaada muuqaalka sii gudbiya la gareeya shargareeya oo la sii wadaaga asxaabtiina. sida wararku ay sheegayaan taliyaha ciidanka xasilinta ee caasimadda ninka lagu magacaabo Aadan Jeele ayaa lagu wadaa in xilka laga qaado, waxaana xilkaasi la rabaa in loo dhiibo taliyaha madaxtooyada ninka lagu magacaabo Maslax. wararka ayaa intaasi ku daraya magacaabista taliyaha guutada madaxtooyada waxaa loo magacaabi rabaa nin lagu magacaabo Cabdifataax oo uu dhalay sida la sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdifataax oo hadda ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilkaasi qaban doona, waxaana lagu bedeli doonaa isla taliyaha ciidanka xasilinta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. haddaba ceeb ma ahan ay leeyihiin dadka qaar ama siyaasiyiinta qaar ama xubnaha qaar oo arintan waxaan ka weydiinay in xilka qaadis lagu sameeyo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ama isbedel lagu sameeyo jagooyinka qaar. ha yeeshee waxay ku taliyeen in ay mudan tahay isbedelka la sameynayo in laga fiiriyo tayada ciidamada, tayada saraakiisha, iyo in ragga la magacaabayo ay u leeyihiin khibrad iyo waayo aragnimo xilka loo dhiibayo. waxay durbadiiba dood ay geliyeen in ninka la yiraahdo Cabdifataax oo uu dhalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilkaasi loo dhiibo, iyaga oo tilmaamay in uu yahay nin dhalinyaro ah oo aan soo marin nidaamka ciidan, oo aan tababar ku soo qaadan gudaha dalka ama dibaddiisa. ha yeeshee uu ka mid yahay dadka ku dhow madaxweynaha, wiilkiisna uu yahay qayb uu ka yahay ilaalada gaarka ah ee Xasan Sheekh Maxamuud. waxay ku taliyeen haddii la sameynayo isbedel xagga ciidamada ah, gaar ahaan saraakiisha, in dad khibrad leh oo lagu aamini karo madaxtooyada, lagu aamini karo xasilinta magaalada caasimadda ah Muqdisho, in la soo xulo oo uu madaxweynaha iyo sidoo kale taliyaha ciidanka iyo wasiirka gaashaandhigga aysan ka fiirin cid kasta cidda ay ku dhowdahay. hadda waxay yiraahdeen magaalada caasimadda ah Muqdisho waa amni, waa mid sidii hore ka duwan, waxayna ku timid dadka qaar oo laga ilaaliyay in ay ku yimaadaan u dhawaanshaha madaxweynaha iyo in aan loo dhiibin dad aan tababar ciidan lahayn, waxna ka qaban karin amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. isbedelkan la rabo in lagu sameeyo taliyaha xasilinta iyo kan madaxtooyada ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu la kulmayo culeysyo kala duwan, waxaana xusid mudan in dhowaan uu xilkii ka xayuubiyay ama uu ka qaaday gudoomiyihii gobolka Banaadir Maxamed Axmed Amiir, una magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahaana gudoomiyihii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Maxamed Xuseen Mungaab. sidoo kale waxay tani imaanaysaa iyadoo isbedel lagu sameeyay dhinaca iyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, lagana qaaday Sanbaloolshe, dibna lagu soo celiyay Mahad Maxamed Salaad. dadka qaar waxay toolka ku ifinayaan in arintan madaxweynaha uu ka leeyahay in uu ka gaashaanto culays walba oo kaga yimaada dhinaca iyo mucaaradka, iyada oo uu doonayo in difaac iyo gaashaan uu ka helo saraakiishan uu magacaabayo iyo isbedeladan xoogan ee maalmihii dambe villa Soomaaliya ay ku howlaneed. haddaba waxaa xogtan aynu helnay ee xaqiijinaysaa in la diyaariyay digreetooyinkii isbedelka, xilka qaadista iyo magacaabista saraakiishan cusub oo qaarkood la rabo in loo dhiibo magaalada caasimadda ah Muqdisho oo hadda soo kabatay, waqti badan la geliyay, iyada oo loo dhiibayo wiilka uu dhalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo dadka qaar ay ku doodayaan in waqtigan aysan ku habbooneen loona daayo
dadka magaalada caasimadda ah Muqdisho waqtigan ka shaqeynaya. Haddaba haddii su'aalan ku weydiiyo adiga sidee ayaad u aragtaa in wiilka madaxweynaha Soomaaliya xilkaasi loo dhiibo oo caasimadii xasilinteeda gacanta loo geliyo? Ma uga dari karaa sida hadda ay tahay magaalada mise wax ayuu ka bedeli karaa? qaybta hoose ee aragtida ama faallada noogu reeb. isla arrintanna wixii ku soo kordho waxaad noqon doontaan dadka ugu horeeya.